بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك الحميد المجيد. اللهم صل على سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر عونك يا ربي يا الله يا لطيف. دمان وإذن وذا السلام يا ولاليه الصومالية ميل كستو أجوكتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وولاشين قطرو وولاليه إني من نمضون هاوينكا دالنيرادة قبدها هذا دادك قارب على جدود هاوينكا دمرك واوين ويقانان دمان شعبك الصومالية ميل كستو أجوكتان walaalihiinni midnimadoonku midoobay weeyaan walaashin qadra barnaamijka inii daadihinaysa markastana waxaan idin leeyahay waan inii xiisay waan inii jeclahay waan inii xiisi doonaa time ma haysto inta yartahay shaqadii aan u sii ordayo yaa waxa la yiri niman shaqaysan shaah ma cabo shaah waa ka xaraamiye ee xil dhigi jira baarba inaynu ku tuuro Soomaaliyay waa la dhamaaday waa la gubtay waa la wareeray xagee loo cararaa xagee loo cararaa fanaaniintii waxay noqdeen al-shabaab macallimadii dugsiga waxay noqdeen al-shabaab macallimiintii iskuulada waxay noqdeen al-shabaab gurigi dhexdiisii hadii 10 qof isla deganto oo family waxa laga yaabaa 8 kamid ah inay tahay xagee loo cararaa war injir quraanjo kutaan ayaa ka dhaxbaxay Soomaali ka soo dhaxbaxday kutaantaas ee loo jafaa sidee baynu uga dugtoonaanaa maxaa ina la haboon maxaynu qaban karnaa maxaynu samaynaynaa sheekadu warkii hore war soo dhaaf meel aadan ka filayn bay kaaga imaanaysaa meel aadan ka filaynin bay kaaga imaanaysaa waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasto aad joogtaan gobol kasto aad ka soo jeedaan degmo kasto aad ka soo jeedaan inaad guryihiina ka bilowdaan inaad kutaanta buufisaan kutaanta waa in la buufiyaa ninkii calanka u heesayay ee heesta quruxda badan ee qiirada leh ee meel kasta laga daarayay ee madaxtooyada laga daarayay oo guryaheena laga daarayay oo life-ka aan ku soo galaynay yaa ninkii qaaday maantaba hadduu al-shabaab noqday al-shayaadiin hadduu noqday inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun warbal soo dhawaada wareer weeyo sii tuura waa soconayaa waxaan rabaa inaan shaqadii yarta ahayd yaa niman xamaalan baa la yiri shaah waa ka xaaraan qaliij soo dhawow walaashay habar macaan soo dhawow yaa waa yaabana war xagee loo cararaa Soomaaliya xagee loo cararaa war xagee loo cararaa war xagee aadaa war xagee laga baxaa war xagee loo irkadaa mar dhowna awal xaar dhimaanada iyo xildhibaanada ayaa shaki ka qabnay waraa lagu habsado war dhammaan dhalinyaradii miiriyaha hal raadiyo dadka xatay Facebook-ga soo gala ee maxaa la dhahaa dadka xatay Facebook-ga soo gala ee ka wacyi galiya qaarkood baa noqon doona wariyayaasha qaarkood baa noqon doona haddana waxaan sugnaaba waa xildhibaanadii uu u heesayay iyo wasiiradii uu u heesayay qaarkood ayaan sugi doonaa ninkii qarax quuta ahaa shahaadada bilaash looma siinin shahaadadii sanadka 2019 bilaash looma siinin run hadaa rabtaan runta la isku sheegayaa Soomaaliyow wixii run sheega waxa la run sheeg waa ceeb sheeg war xagee la yeelaa hadda gabdhihii xatay waa cabsanayaan hadday nin guursadaan kuwa single-ka ahaa waxay ka baqayaan inuu sariirta ku dhex bireeyo runta la isku sheegayaa meesha tan warin sariirta uu ku dhex bireeyo cidaal shaadiin ku noqdaa laga baqayaa war maxaan ku dhahaa mar dhow waxa la sugaaba yaa waa dad badan oo aan laga filaynin inay noqdaan waxaas hadiiba mar fanaaniinta la iska soo galay yaa jiijo soo dhawow walaashay macaanta jiijo cali musiibo waxa ah oo musiibo nagu noqotay oo aan maanta dhakafaar ku qabnaa waxa weeye xagee loo cararaa war xagee loo cararaa war xagee la aadaa war yaa lagu hirtaa maanta hadii la keenay macallin iskuul hadii la keenay macallin dugsi hadii la keenay fanaan oo waliba fanaanadu kala duwan fanaankii qiiroonayay ee madaxtooyada heestiisa meel kasta ka daarnayd ee kamid ahaa habalada waa bari ee ka heesayay dawladda u heesayay ee kabaha u siday
aan loo marayn bacamaasiir halka inay soo gali karto maanta hadduu al-shabaab noqday wariyaynu sugnaa yaa la sugayaa yaynu sugnaa Soomaaliya meesha laga kaco wallahi wadankan waa u dhamaatay wadankan iskaxdi baa laga qabsaday wadanka kan saqiir iyo kabiir waa al-shayaadiin yaa la diraa warna ilmihii baa la ilaaliyay waxaan inay iri maalintii dhaweeyta fiiriyowgayga ugu dambeeyay wuxuu ahaa walaalayaal aynu ilaalsan ilmaha walaalayaal ilmaheenu waxay soo baranayaan aan ogaano maantana xafladaha la dhigayo dadka dhigaya dadka ka heesaya hal la ogaado waxay dhaheen sirdoonku madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo baa waxa lagu dilay gaaray oo qarax loo dhigay oo in la dilo la rabay oo mission laga raadinayay hameenkii ay jirtay sanad guurada ciidanka Soomaaliya waa yaabanaa waxa xagee ka imaan kartaa allan fanaaniintii u heesayay oo joogay maxjarka ee ka heesayay meesha ayaaba waxay yihiinba al-shayaadiin yaa war waxaan maxaynu sugnaa waxa la sugayaa maxay tahay mar dhawna waxaad sugi doontaan xildhibaanada wasiiro la soo qabto la yiri waa al-shayaadiin oo yiraahdo dawladdan uga sheekayn jirnay hadda wuxuu yiri waxaan u qaabilsanaa lacagtaan u qaabilsanaa financialkaan u qaabilsanaa 2013 bal ilaah baa idinku dhaarshay 7 sano ayuu noo qiira jabaaneynayay 7 sano ayuu heesa beena naga gadayay al-shabaabku ayagu dad diinku gabadha lagu ogaayo diinta rogee dhaantadii iyo kamradii iyo shiishadii iyo doofaarnimadii iyo aynimadiina ma isku darsadeen yaa war waa la yaaban yahay war shaag baa lagu maqan yahay gabdhaha Soomaaliyeedow nimankan xabadka idiin soo wada tumaya ee idiin wada heesaya ee wada dabada taagaya caashaluule deeqaluule sacdiya dhimane sacdiya simane ee ku haya oo idiin wada heesaya oo xabadka idiin tumaya yaa fartuun qaalaay xabiibtiyay wadnahaygiyay beerkay maqanay beerkay idin kala bixin kariyahayay idin kala bixin meeshan aaminaad waa dhamaatay Soomaalina qalbigii bay ka mayrantay qalbi ma qabaan xiskii bay miirmeen ayaga dhanba waxa ku wada qufulan wadanku dawlad yu yeelan kala dambayn yu yeelan balaaya caloosha uga buuxda shayaadiin ba caloosha uga buuxda ilmihii dhashaa waa ku dhalanaya al-shayaadiin markuu 10 sano gaarana afku soo duubanaya war waxaan hadaan lala dagaalamin war culumadii aawa war bal culumada inta nabadda qabtooy aan aaminsanayn in dad dhiig la daadiyo aan aaminsanayn in gaal wadankaaga jooga ee kula jooga aan lagu lala dagaalin aaminsanow soo baxa maxaa yeelay nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuu kala saaray waxaan ma ahan diin ay al-shayaadiin wadaan nabigeena wuu kala saaray oo wuxuu u kala saaray gaalul harbi iyo gaalka kula degan oo masaakiinka ah war gaalka harbi waa gaalka kula dagaalaya oo hadda meesha la yiraahdo Falastiin oo kale Syria oo kale waa lagu soo duulay dad baa la dagaalamaya iska celinaya xilligii nabigeena calayhi salaatu wasalaam gaaladu ku soo duuli jirtay oo kale laakiin dad masaakiin ah oo guryihiina jooga oo dhulkiina dhisaya oo idinka idinla jooga oo ama ciidan amba maxaa la dhahaa macawma bixinaya ama gargaar bixinaya diinta ku tiri isku qarxi oo u dagaalan ma garanayo gaal harbina waa gaalka kugu soo duulo kula dagaalaya ee diintaada kugu haysta gaalna waa gaalka sida laanqayrta cas oo kale sida dadka laanqayrta cas sida maxaa la dhahaa dadka oo maxay ahayd dadka oo laanqayrta cas dadka maxay ahayd isbitaalada daawooyinka dhakhaatiirta haddii la ku rooyahay dadkaas oo kale gaalul harbi ma ahan waa gaal masaakiin ah oo adig ku gargaaraya war waxa kan ma ahan aawadaan jihaad there is not a jihad waxa waaye mental illness waaye waxa weeye dad jiran
oo xanuunsan oo diintii rogay weeyaan dadka waxaan samaynaya maanta inta ninka heesaya oo ku dhahaya sargaal baan ahaa diinteen waa al-shabaab ugu shaqaynaya ma isweydiisay diinta uu ugu shaqaynaya al-shabaab war ma isweydiisan diinta uu ciddaan ugu shaqaynaya ma isweydiisan diintee hayste ma isweydiisan muxuu dadka qaraxii soobe waa soo dhiga picturekiisa waxaan soo dhigay pagekayga caadiga ah ee akoonkayga personalka ah qaraxii soobe wuu tacsiyeynaya waxaa u xirnayd mara cad koofiyad baa uga sarraysa yaa fiiriya waa asaydaa u saarnayd maradaa cadoo uu madaxa ku xirtay ma ahayn yacni qiiraanyo uu u qiiraanyoonayo dadkii ka baaba'aya naxdin waxay ahayd asay buu xirtay because qof asaga ka mid ah ee wuxuu aaminsan ayaa googo'ay oo dad baabi'iyey qofkiisiibuu u qiiraanyoonayay raggii sooba u oynayay ee fanaaniinta ahaa ee u soo baxay iyo shacabkii soo baxoo kale waxay xirnaayeen waad xasuusataan maryo gadguduudan bay madaxa ugu xirnaa oo ah dhiigbax iyo murugo ay dalkooda la qaybsanayeen laakiin asagu maalintaas wuxuu xirnaa mara gaduudan ma xirnayn fiirsha u sii fiirsada picturekiisii wuxuu xirnaa fanaanad cad iyo wuxuu xirnaa maro cad oo kuwii naagaha asayda markay qaadaan oo ninkoodu ka dhinto madaxa ugu xirnaan jiray koofiyadna waa qabay wuuna oynayo wuxuu lahaa dadkii soomaaliyeed baa la xasuuqay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun allaha u naxariisto tigtaaga markaa gashaan oo fiirisaan waxyaalaha uu ku soo gelaya gabdhaha suu u gelayo waad yaabaysaa diinta marka ninkaasi uu ku ahaa al-shayaadiin uu sargaal ugu ahaa bal dabagala maxay ahayd ilaah baa idinku dhaarshay walaalayaalow marka waxa kani al-shayaadiin laydin leeyahay diin ma aha ama qaata ama ha qaadanina war diin kuma dagaalamayaana dadkan waxay ku dagaalamayaan inay dalkan dulli ka dhigaan inay dalka baabi'iyaan shala waxaa dhacday nin brofeysar ah ayaa wuxuu ka hadlay jaamacad ku taalla Buffalo New York markuu ka hadlay Soomaali waa falcelise waxay ka falcelise Kenya Ohio Minnesota New York anigaygaan voicemail baan duuba alle iskuullada annaga wax regional la yidhaahdaa noo jira in New York wii gaara dhan high school iyo college iyo jaamacad dadkii dhiganayoo dhan iskuulla ma lihin ciyaalka yararkaayo elementaryga ah ayaa leh iskuulla xataa middle school ma lahan I think middle school jira astaghfirullah laakiin elementary iyo waxaan idiin hubaa high school college jaamacada intaasba inaysan jirin New York oo aanu ku jirno maxaa la dhahaa aan ku jirno regional wax la dhaho regional wax la dhahan ku jirnaa regionalka aan ku jirno iskuulka intixaamaa ka jira region wadamada kale ma lahan steedyada kale ma laha waa region maadaama New York ay tahay meesha ugu waxbarashada adag in America regionay qabaan ilmuhu oo extra ka intixaamadooda kaasay qaadanayaan waa laga falceliye xamar baa laga soo wacay Ohio laga soo wacay Seattle baa laga soo wacay haddii la kuuro yahay Minnesota New York teenaan meel aan Canada Kenya meel aan laga soo wicin ma jirto war waan ka falcelin naqaanaa dad shisheeye ah markay hadlaan waan ka falcelin naqaanaa saan baa u dagaalamin naqaanaaye maxaa inoo diiday waxaan example ka wata dhageysta ninka Kenyaanka ee ka hadlay jaamacadda Buffalo waad ka hadasheen waa ka wada falceliseen ilaa iyo Yurub iyo Aasiya iyo Afrika iyo Amerika maxaa idin diiday inaad ka falcelisaan dibka guryihiina yaala maxaa idin diiday inaad ka falcelisaan idinku sida aad isku xibinsaan oo qabiilada isku kala gaagaysaan maxaa idin diiday inaad ka dhidaan dibka dhexdiina yaala example all of you saawdantihiin Soomaaliya markaad joogtaan every single Somali waa is discriminate garaysaan example markaa idiin soo qaado America joogtaan shaqa hadal leedin leeyahay oo waa la discriminate garay because Muslim baan ahaa because marawe baa qaba because luqad kale ku hadla dhaq baa tirahdaan maxaa idin diiday inaa idinku sida aad uga falcelisaan wadamada kale oo cuqdada wadamada kale aad ugu geysataan aad dhexdiina cuqdada uga saari weyseen maxaa idin diiday
wixii samaa maxaa inii tusay waxa xun war maxaa isugu gargaari la'dihiin maxaad wiilkaaga al-shayaadiin u soo qaban la'dahay why information u dhiibi la'dahay why informationka u dhiibi la'dahay why u soo report garayn la'dahay war wiilkaagu hadduu yahay al-shayaadiin waa soo sheegi kartaa gabadhaadu hadday tahay waa soo sheegi kartaa hooyadaha hadday tahay waa soo sheegi kartaa aabbaha hadduu yahay waa soo sheegi kartaa maxaa yeelay dalkan badbaadadiisa ayaa ku jirta maxaa yeelay dalkan iyo shacabkan badbaadadiisa ayaa ku jirta waxaan arkayay nimcaan hilaac iyo dhalinyaro ay ku jirto oo shaag ay la noqotay oo miidiyaha soo dhigaya maxaa la dhahaa waxaan arrin ugu bay nagu noqotay yaa ba arkay maxay ugu noqon weyse kuwa hadda kula jira oo ka mid ah baan anigu tuhunka qabaa ninkaas maanta la soo qabtay ee qirtay kuwa waxay dhahayeen waxaa la yiri waa lagu kufsanayaa qiro baq laftirkooda hala baaro they are so useless Somali people na gabigooda wa taraash waaye wallahi qashin waaye because xumaha ayay gacan isku siiyaan samahana way qariyaan maxaa yeelay qabiil baan maskaxda naga cunay qabiil baan na duleystay qabiil baan na takooray qabiil baa maxaa la dhahaa taariikh nagu dhigay war qabiil waxaan ahayn ma aaminsanin war ninkaas hadda fanaanka ninkii miraha siin jiray ninkii saaxiibka la ahaa ninkii taleefanka kula jiray ku la deganaa say u dayihiin waa in la soo saara waa in la soo qabtaa waa in la dabagalaa waa inaan laga hadlin walaa xildhibaanadii uu u yeesi jiray ee habeen iyo maalin uu la qaadayn jiro qaadkii qurunka la cuni jiray najaasada hala soo qabto wasiir goodah maalintii la isugu yimid maxaa la dhahaa baarlamaanka oo xildhibaanna qaarkood baarlamaankii qaseen oo diideen in la ansixiyo wixii la rabay in la ansixiyo dowladda ansixiso wuxuu yiri xildhibaanadii diiday oo dhan waa wada al-shayaadiin yaa dabagalay ma la dabagalay waan istaagay 5 minutes aan kugu darayaa nimankii ma la dabagala maya lama dabagelin markuu wasiir goodax uu yiri nimanka xildhibaanada iyo wasiirada meesha tan diiday in la dhageysto yaa ciidanka xooga saraakiishooda oo ciidanka xooga saraakiishooda wax ka gaabsadeen ayna og yihiin dad xildhibaanada ka mid ah inay yihiin al-shabaab yaa dabagalay no one dabagalay madaxda dalka ugu sarreysa waxaan ugu baaqayaa gudoomiyaha shacabka Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa baarlamaanka mudane mursal nimanka xildhibaanada ay al-shabaabka ay meesha ku jira ee tuugada la shaqeysta waa in la soo wada xirxiraa shacabka Soomaaliyeed waxay codsanayaan in ninka kan iyo wixii saaxiib la ahaa intuu qaad la cuni jiray intuu la deganaa intuu guri la joogay intaba waa in la soo qabtaa dadkana laga takooraa عبد آدم وحي يرادين كاشة كسنها أنا كاله يدعي كاشة كسن تاي إيمو إبار مركا وحن لا شعب كصوماليات حين بينو نقانا وحينو نقانا إن قف كستبع أينو أفك كدقنو وحينو نقانا إنا إسعينو وحينو نقانا إنا إسعذابنو وحينو نقانا إنا إستكورنو لا محالة دها أمانك dadka ammaanka ka shaqeeya nabad sugidda ka shaqeeya shaqadooda u daaya war hal la yiraahdo ama hal lagu kufsado ama hal la yiraahdo afka laga fuulayo hadii la doono nimanka tuugta dhashay ee lagu soo qabtay inay al-shabaab ilaa 2013 u ahaayeen xageen u arkana hadda waxaan ku wacyigelinaynaa hooyooyinka Soomaaliyeed war ilmihiin waxay iskuulada ka soo bartaan ogaada hadda macallin iskuul baa la hayaa fanaan baa la hayaa macallin dugsi baa la hayaa xildhibaano iyo wasiirana waa sugaynaa madaxda maamul goboleedyada ka talisa waa sugaynaa dad badan oo badan baa la sugayaa dalkana 1 iyo 2 ma joogo faroole faroole faana kama qodnaaliyan faroole faana kama qodna faroole fare kala qodna Soomaaliya ma joogno 1 iyo 2 haftay haaf meel ma joogno
dowladeenu ma bisla maxaa yeelay kutaan bay ku dhex jiraan maxay qabtaan kutaan bay ku dhex jiraan injir bay dhex hurdaan kutaan bay dhex hurdaan baranbaray dhex hurdaan jiir bay dhex hurdaan halaq bay dhex hurdaan doofaar iyo ey iyo mas iyo good bay dhex hurdaan madaxdu good goosanayay dhex hurdaan maxay qabtaan madaxdu good bay dhex hurdaan good bay dhex hurdaan faanoo la farkama qorna dhahaa xabiibti yaa waxaan leeyahay marka shacabka Soomaaliyeed faanoo la farkama qodna raalli ahaada haddaan faroo la farkama qodna irada anigu mahmahada waa isku xunaa waa inii sheega waxa li qofku meesha uu ka xun yahay waa inuu tilmaamaa anigu waa ka xumahay mahmah xildhibaanada iyo wasiirada madaxda Soomaaliyeed qof allaale qofka ay tuhunto waa inay xilka ka qaadaan meeshan ama fad ama hafadin baa la yiri sanka haddaan Soomaali laga tolin ee la gumaysan wallahi inaysan qaadan dawladnimo Soomaali kal baqday leedahay kalhan baqday leedahay malahan baryo malahan isqeymeen malahan isqadarin waa nin awoowe ayeeyo abkow qansaxow qurac hiriglow yicibay dhafaruuray miracasay geedka la gubayo xabagow balaayoy jinniyo dhan bay wataan intaasoo dhanna waxaa lagaga haylin karaa ayadoo madaxa lagaga istaaga Soomaali madaxda Soomaaliyana waxaan leeyahay Soomaalilah baaba ka dhiga dharjiyana intaas kaliya madaxnimo ku keeni kartaan wallahi Soomaali inaana biyo iyo biidha iyo bariyo aadan waxba oo ay ku leedahay ay waji ku leedahay oo sharaf ku leedahay oo qiimo ku leedahay oo dawladnimadeedu ku soo noqonaysa in Soomaali halka madaxa inta lagaga istaago qasab dawlad loogu dhaliyo awood waxaan ahayn Soomaali in loo sheegto ma ahane wallahi iyo billahi inaysan dawlad ku noqonaynin Soomaali waji kale ay leedahay ma jirto awowga Ilaahay ku naxariiso jannatul firdaws ku sii hadda ka hor baa waxa la isugu yimid meel markaasa Cabdullaahi Yuusuf Axmed baa odayaal isku keenay markaasa yiri warseebaan heedaha dawladda maamul goboleedka Puntland markii la dhisay bay madaxweynuhu haasee wax ku qabtaa buu yiri Puntland buu markaa madaxweyne u ahaa oday kasta meel buu ka dhacay awowga inta ka istaagu yiri war labadoodiba waa dhinteen Ilaahu ku naxariiso war Cabdullaahi suu yiri hee Axmedow markaasuu yiri war Soomaali labaad ku dhaqi kartaa buu yiri wax kale aad ku dhaqi kartid ma leh halkaas akka saar buu yiri kii ka soo horjeestana toogo kii kalena dharji wax kale oo Soomaali aan meel uga keeni kartid ma jirto Cabdullaahi Yuusuf tiibu ku baxay waa la ogaa Puntland ma dhisanteen garabna ma siisateen maanta meeshay 21 years joogtana ma ay joogteen niman xun shaakad xun hadeer qaatay adduunku hadda ugu hor yahayna kuma ay baqbaqdaheen kiishkana uma buuxsaneen China iyo Imaaraadna kama gateen Cabdullaahi haduu nool yahay ama awowgay haduu nool yahay ilaa ku naxariisto jannadiina labadiinaba idingeen marka waxaan leeyahay oo ugu baaqaya madaxda dalka Soomaali madaxweyne uma noqon kartaan ra'iisul wasaare uma noqon kartaan halka hadina ka durin tuugada idin fadhida baarlamaanka ee ninkan hoosta ku haysatayna waa inaad banaanka soo wada dhigtaan ninkan waa in la daba galaa silsiladan silsiladan go'i mayso waa silsilad dheer ilaa iyo raas Kambooni ilaa iyo raas Casayr ilaa iyo Lowyacada isku xiran tahay يا عفي علي مسابح shaqadeydii wax yar baan dhaafay waliba xilligan gali lahaa intaasaan idinku faa'iideynayay iska kay cafiya hadalkayga hadaa dhibsateen aniguna sidoo kale cafi aliya masaabax baad digatiin aakhiri adduun waa walaashin qadro intaas idinkaga tagaysa barakallahu lakum wa baraka alaykum ha ilaawinina inaad share garaysaan fiidiyowga ha ilaawinina inaad follow up garaysaan midnimo doon
KBDS page-kayga cusub ee ah midnimadoon kacdoonka badbaadada dhalinyarada Soomaaliyeed hooyo badbaadi dalkaaga insha Allah biidnillaahi kariim YouTube-kana waxa weeyaan Faadma Saciid insha Allah biidnillaahi kariim kor buu idin saaran yahay subscribe-ka like-ga iyo share-ka intaba ku tuura haddii Ilaahay qadaro waana idin wada salaamayaa inta Soomaaliya joogtana waa is arki doonaa insha Allah soon inta hadda maqana فرحي عمر waxay tirwaan ku dhibsana cafaaliyo masaawa xabiibti cafaaliyo masaawa iska kee cafi I love you so much waa idin wada jecelahay iska kee cafiya markasta waan waxaan ku fiicanahay cafiska because Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri islaahu bayna nas فرحي أورنا دافي ترى يواكو دافي باي باي I love you all السلام عليكم سومالي ذرنت النبر بيكون نقطع بنتنا فرحات بيكون نقطع بومبون انت أدونك يكون نقطع وعيد ماذا السلامي وبالله التوفيق